buugga cilmi baadhista af Soomaaliga qalinkii abwaan qoraa Maxamed Aw Cali Cartan Haldeeq hordhac bulsho kasta oo dunida guudkeeda ku nooli waxa ay leedahay dhaqan caado diin iyo habnololeed u gaar ah oo lagu yaqaano bulshadaasi iyada ayaa nolosheeda maaraysata oo ku dadaasha sidii ay nolosheeda dhaqankeeda iyo afkeedaba ay ummadaha kale ugula tartami lahayd bulsho kasta waxa ay leedahay jiilal kala dambeeya oo marba qaar noloshooda hogaamiyaan lod kasta oo kaca waxa uu ka tagaaraa taariikhdooda ku suntan haddii uu noloshooda wax ku soo kordhiyo iyo haddii uu waxyeelo iyo dhaawac u geystaba waxa raadkooda laga daawadaa muraayadda taariikhda oo ah been ma sheegada nolosha sidoo kale inaguna waxa aynu nahay ummad ka mid ah quruumaha adduunyada ku dul nool walow aynu nahay ummad xoolo dhaqato ah oo dhowaan ka soo dhex baxay noloshii daaqsatada inkasta oo aynu maamulan jiray hab nololeedkeena haddana maynaan lahayn sooyaal boqortooyo maamul iyo mid nololeed oo qoran ama qoraal ka hadhay ilbaxnimo qoto fog oo aynu ka faa'iidaysanno iyo dhiganayaal aynu leenahay oo loo noqdo marka aynu sixitaan iyo horumarin ku samaynayno afka iyo dhaqankeenna iyada oo ay sidaas tahay haddana waxaa jiray xilli aynu soo dhaafnay oo aynu qornay afkeenna qoraalkaas 1972 la soo saaray waxa uu ahaa guul u soo hoyatay ummadda ku hadasha af Soomaaliga waa dhaxal iyo tacab ay inooga tageen raggii soo maamulay raggii soo shaxeeyey kuwii qoray iyo raggii hogaaminayay hirgelinta af Soomaaliga waa raad iyo sooyaal quman oo lagu xasuusan karo waa tacab dhaxal gal ah oo waqti adag dadaal maskax iyo maal badani ku soo baxay oo mudan in lagu daydo inkasta oo aynaan odhan karin way dhammaystireen oo ay qabyo badani jirtay haddana waxaa la odhan karaa wuxuu ahaa af qoran oo la abyamay haddaba haddii aynu nahay jiilkeennan xilligan nool ee xilku ka saaraa inay afkooda halkii la soo gaadhsiiyey kasii amba qaadaan oo ay inta hadhay u sii dhammaystiraan oo qabyada iyo ganka kasii dhammeeyaan ama ay afkooda iyo dhaqankooda wax ku soo kordhiyaan maynaan noqonin qaar waajibkii ka saaraa afkooda gutay malaynaan noqonin qaar ku daryeelay halkii uu taagnaa ee la soo gaadhsiiyey waxa aan odhan karaa waxa aynu nahay jiil tacabkii ay dhexleen dabalka ku haya waxaynu nahay jiil ku dadaalaya oo isugu faanaya sidii ay u tirtiri lahaayeen afka iyo dhaqankooda waxaa la yidhi nin reer iyo carruur leh ayaa waashay oo dad iyo xoolaba kala laayay waxa qayladoon loo diray xigaalkii si ay reerka uga xidhaan markii ay xigaalkii u yimaadeen ee la is yidhi xidhxidha ayuu yidhi waar haddaan waalanahay reerkana leeyahay sidee lay gelayaa sida aad dareensan tihiin intiina aragtida fogi waxaad wada og tihiin in cidhib tir xun aynu ku hayno sii jiritaanka afkeenna dhaqankeenna iyo ummadnimadeennaba waxay Soomaalidu ku mahmaahdaa ruqo ninkii lahaa dabada hayaa ma kacdo sidaas daraadeed ma quman tahay in haddii aynaan wax ku soo kordhin karin in aynu intii ina soo gaadhay sidii ay ahayd u daryeelo oo aynu dhaawaca iyo waxyeellada kale ka dayno mid waliba taariikhda meel buu ka geli doonaaye ma laga yaabaa dadkeennan xilligan nooli inaynu noqonno qaar lagu sunto oo lagu xasuusto kuwii cidhib tiray ummadda dhaqanka iyo afkooda waxaa ka mid ahaa suugaantii uu ku sii dhilaabayay abwaan gaariye maansadiisii dabataxan dal waxaan ku noolahay lagu furay dadnimadii saddexdii dalaaqood dhammaad la soco qaybaha dambe oo nagu xidhnoo barta guduudan guji suulka kor u taagan riix waxaad noo tahay qof muhiim ah ee nala joog